Allah u naxariista Abwaan Siciid Maxamuud Gaahir Hargeysaawi ayaa 13 bishii Oktoobar ee sanadkani 2023 bartiisa Facebook ku qoray qoraal u dhignaa sida tan: bandhigga buugga Hadhiwe Maxamed Muuse Jaamac waa 3 Noofembar sanadka 2023 iyo hoolka weyne Maasoor Hadiyaleed. dhammaanteen waa aynu hareere taaganahay Maxamed Haldoor, waxaynu tabaynaa farax ayaan la dayax weerar aan leenahay ilaahay hawshaasi haynugu guuleeyo. Allah u naxariistay Abwaan Siciid uma ay suurtagelin 3 Noofembar uu tabaniyay inuu gaadho oo waqtigii cimrigu ka simo, waxaana ka soo horumartay qadarta Alle iyo xukunka sharciga ah ee geerida. Rabbi naxariista jannaha ka waraabiya Abwaan Siciid Maxamuud Gaahir Hargeysaawi waxa uu ka mid ahaa laf dhabarta suugaanleyda Soomaaliyeed iyo qalinmaasha Soomaaliyeed, kaasi oo abwaanku si hagar la'aan isku garab taagi jiray. Siciid Maxamuud Gaahir Hargeysaawi oo aan mar wax ka weydiiyey Allah u naxariistay isagana Abwaan Gaariye waxay ahayd 2 Oktoobar sanadkani 2023 isla bisha abwaanku geeriyoon doono. Rabbi godka ha u nuuro, naxariista jannana ha ka waraabiye. qoraalkaasi uu boggiisa ku baahiyey waxa isaguna qaybta faallada kaga jawaabay weriye Maxamed Haldoor, sidoo kalena waxa qaybta kale kaga jawaabay faallada weriye farax ayaan la dayax weerar. Allah u naxariista abwaanka. buugga ayaa lagu soo bandhigay caawa Hotel Maasoor ee magaalada Hargeysa.